maxamed nuur oo ka tirsanaa booliiska Minneapolis kuna eedeysanaa dilka habeenay u dhalatay dalka Australia ayaa lagu xukumay 12 sano iyo bar kadib markii lagu helay kiiska dilka habeenayda. Dilka ayaa dhacay sanadkii 2017 wixii xilligaasi ka dambeeyay waxa uu soo gaariyay heerar kala duwan sida warbaahinta Mareykanka ay sheegtay bishii Abriil ee sanadkan 2019. waxaana la horgeeyay maxamed nuur maxkamad inkastoo dib loo dhigay kiiskiisa. waan ka xumahay waxa dhacay, waana qalad iga dhacay ehelka Justana Ruskey, waxaan weydiisanayaa in ay cafiyaan, ayuu yiri maxamed nuur. 7 Juun 2019 oo shalay ku beegneed ayaa maxkamad ku taala Hennepin waxa ay maxamed nuur ku riday xukun xabsi ah oo 3 qaybood 2 qayb qaadan doona sida uu dhigayo sharciga Mareykanka. Soomaalida Mareykanka ku nool ayaa dhaliilsan qaabka xukunka 12 sano ah ee lagu riday maxamed nuur oo kamid ah dhalinyarada Soomaalida ee darajada sare ka gaaray booliiska Mareykanka. maxamed nuur oo ahaa nin 33 sano jir ah ayaa noqonaya sarkaalkii ugu horeeyay ee lagu rido xukun inta la eg isaga oo loo haysto kiis dil ah, waxaana maxkamadda goobjoog ka ahaa ehelka Justana oo ahayd 40 sano jir ku baxday gacanta sarkaalka. maxamed iyo habeenayda uu dilay waxa ay wada haysteen muwaadinimada Mareykanka oo ay u weheliyeen kuwooda asalka ah ee Soomaaliya iyo Australia.